kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena fanka iyo suugaanta oo hadba idin ku soo xulno dadka fanka u heelka hadii yihiin abwaaniinta musishinada iyo waliba fanaaniinta qoraayada maanta waxa martiino ah abwaan Shacayb Cabdiraxmaan Maxamuud waan ku faraxsanahay kulankaaga ku soo dhawow horta marka horeysa barnaamijka bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil anbiyaa wal mursaliin amma ba'd waan dhawey walaal ayaan aad baad ugu mahadsantahay barnaamijka adiga iyo inamada awloodanada kalaba aad baad mahadsantahay abwaan Cabdiraxmaan abwaan Shacayb markuu badii mar labaad baan ku faraxsanahay barnaamijkaada naga qayb qaadato hadii aan idhaahdo imka waxaan dhamaantood ka sheekeynaa taariikhdaada oo mid aan soo koobi kareyn wal xogaa dadku iyagoo ku yaqaana haddana inay afka ka maqlaan waxa jira naanayso marka magacaaga bal saddexan iyo taariikhdaada halka aad ku dhalatay adigo صح walaal magacayga saddexan waxa weeyaan shaqada sheegtay Shacayb Cabdiraxmaan Maxamuud waxaan ku dhashay duleedka magaalada Hargeysa meel halkan oo ilaahdo Geedeble iska reer mi weyn baan xaqan haddana mi baan ku soo yeero aduu kala xogaa waqtigii ay qoriyay dugsiga hoose ayaa magaalada la keenay sidii baan ayaan dugsigii sare dugsigii hoose ayaan ku bilaabay macallin Daawud kii sare Deebgray jaacadii Rift Valley University saas baan markaa nolosha waan ii sheegayo taariikhda haddaan idhaahdo waad bilaabaysaa waa mid aan laga geeyoonaynin waxaan jeclaan lahaa haddaan isla suugaantiisa halkan ku soo ururiya oo mid aan mid koobi karin bal laakiin hal iyo laba iyo saddex waxaynu ku gaarsiin karayno ayaan jeclaan lahaa inaan dadka la wadaagno dalka ubax ka beermay gabay la yiraahdo ayaa jira bal gabaygaas aan jeclaan lahaa inaan ku furno barnaamijka horta gabaygaasi waa gabay uun ka mid ah gabayadeeda marka sababtu ku soo aan ku curiyay waxay habeenada ka mid ah anigoo xaafadda jooga nin ka wada hadlaynay khadkan ka hadlaynay adoo ninkaasi wuxuu sheegay inuu meel tagayo aduu yaani dalka dibadiisa uu jecel yahay halka uu doonayo inuu tago yaani aad ugu weyn tahay maca waxbarasho iyo hawlihii kala wadanka uu ka hay uu joojiyay soo halka wada dirtay markaas yaxani kullu waa dadku iska yar tashka badan leeyahay tashi ugu soo dhacayo waxana siri horta aduu halkee tigisi marka hore halka ninka inta wareysay ma meel ba tigin markii ma hadalay jawaabo wax marsano dalkan baadaa leh deekan xagee tigisa kan baaba waxaan ku dhig wax ka sugayo wax ku ah wax ku tahayba dabcan ma sidaas waxa ku bilaabantay sidaas tabtaas ku bilaabantay bismillaah ma soo raxoonaysaa wayadan dabab go'ay ka go'ay dihashadeedii iyo murtidaan dileen jiray baryaba waanigan deeyina mar dareen qaadan shubaa duxiyo iidaana maanta dalkayga rabaa inaan difaaca degalkii Hargeysiyo anoo damar har weyn jooga anigoo dadkayga oo jecel kula dekeynaya dugsi hooyo leedahay anoo dhaxan ka soo diirta isagoo walaalay damqadi daaradii la jooga habar yaro haliye deeqsiyo daacadhanado leh edda laygu daaho inta dadaysa inteeda abti idalaayada adeer diiftayga dhowra iyo duulalkii ay dhaleen daha ma siisteene dalka ubax ka beermaan hoon dacal u dhaafayne ninka dabada raacdanayo daniya yalkaaga adiga dayoobay rag baa tooda daaqsaday tiisu door ma noqoteen hadaa taada daayicin diin laawayaal jaan hadaa dawlis kula roorto dawarada ninkii horsado darajo beelkaaga cimilada degani waa midaan doolar jarahayn baraf lagu dardhado iyo kuleel diirka naga siiba midna daayinimo badan hadaa balana duubin baahi loo dareeriyo ma qaba dubata gaajeed dilaal iyo xamaal iyo ninkii ganacsi deexaysta dir ilaahay ruuxi u kacay hanay dacaamki dib jir saaxday baan qadin oo cod buu dib u shaxaadaa dirham uma ceel qabo kala ciid daawado ninka dibadda raacdanayo daniya yaalkaaga tabacsani Hargeysaan u qire farax ku daashood masaluhu dalxiis ugu filan daaloon marin halka deeracad lagu maalayaa lagu dawoobayo hawdo dareemo leh naftaan diiday oranayn xaabiyo dabaal maalintu damcu raadashada kadib jacaylkii berberi waa daqiiqado dawgo barwaaqa hadaan deyrteere gaaro burcada caladeed iyo sarre mar dariiqeeda buu hoodla deymada heshaa yuruma doonteen yuruma doonteen tu baridista jaaneer haddaan baran ka soo diirsho
dalsankii salaag iyo haddaan daalayaro gaadho sooldoo ku yaal baan inoogi dacar u haysteen beri kama dal gaadhee haddaan dib uga soo laabto halka daad midhar yahay haddaan doonyaro jiito nin gabiilay dalageeda galay soo dibiranaax cilmiga iyo duruusaha halkii mawla ugu deeqay jahli uu ka daahiri ninkaa udal door tegey damaashaad nin yidhi salal ka goray malabka doocaadiye dhulkan deedifiye meel la naco daana laga waaye ninka dabadda raacdanayo dan iyo yeelkaada gabigaasina saas ku leeyahay waa dan iyo yeelkaada ayaynu leenahay markoob hadiya mar labaadba abwaan shacayb haddii aan ku idhaahdo sawir yar amba muuqaal yar markaynu kasoo noqono gabaygaasi yacni jawigaaga bedelaya bal jacaylka iyo haddaan ku idhahdo sawir yar naga siiyo iisaad isku tihiin aniga jacaylka horta jacaylka cidlo kama maaranto oo maanta dee waa inaga lafteenna jacaylka unagu dhex jira inuu iskaga baahanay jacaylkii baaba dee horta yaraa iminka si kale loo bedelay laakiin jacaylkan iminka dee iska yaraa marka laba cisho la isla hadlay amba laba cisho jacaylkii hore iyo kii dambe way kala duwan yihiin jacayl dee waxaan jacayl midna waa jilniin midna waa jacayluun marka hadda waxaan odhan lahaa jilniinkii baad u batay haa iminka waa jilniinoo dee iminka waa isku yar yacdo ma adigoo run dee qofkii run sheegaya lama garanayo run iyo been waxay tahay markaa iminka jacayl wax kolley dee mayna dadkii badidoodii jacaylkii waa waxay been ka sheegeen jacaylkii been ka sheegeen halkaasay isbedelku ka yimid u ballaaran waayahay maansin haddaba u tegaynaa sax maanse la yidhahdo walaalnimada yaraad dabcan bal maansadaasi iyo say ku timi haddii aynu kacno dhankeeda walaal maansadan walaalnimada yaraatay marka la yidhahdo ereygaasi waxaad moodaa inuu qofkii bini'aadanka ha bedelayaba walaal waa uun adu iyaduna kuwa aan dadka ku wacyigelinayo weliba iyadu si dhacda dhababay u dhacday oo nin dhalinyaro aan aad saaxiib u nahay oo weliba aad iga yara ayaa iga hor yimid habeenada ka mid ah jaacad ka soo baxay oo xagga xaafadda ku socday deetana waan yara degdegayo buug baasto xagga xaafadda la socday inankii oo si humaagiisa aanan garanayn oo waddada dhinac madow saas kalooga maraya ayaa shacayb bay gudhaha laba hayno markaa walaalo baan kuhi intaana hadalka lababa hebel iyo hebel toona baan kuhi walaalo way qoslatay maxaa dhacay waaba yimaadeen maxaa walaaladan yaad khaldis ahaa ayde waxay walaaladan kelmaddii anoo qoonsaday ay walaaladaynimmadaasi ay u noqon weydey aadna sheeko kale iga sheekeeyey waxaa weli anagoo kubad ciyaarna habeen dhaweyd nin dhalinyaro iska oo tabliiqi ah ana la ciyaariyay yidhahdeen kubaddii buu saa ula soo cararayo markan goolkii baasha badan hablo ma yaqaanaanade adu yacni goolkii oo cidi ka dambeyn ayaa islaha dhaliyo mid baa ku ari dhibi dhib isaguna ha walaalo dhali ha walaalo dhali isagii baa qoslay kii dhalay baa qoslay oo fadhiistay waxa muu dhalin yacni way qosleen waxa lagu qoslayaa walaaladii bay noqotay gabaygaasi markaa waxaan maasadaasi waxay ku timiday saasay ku timiday markaa walaalnimada yaraatay baa la yidhahdaa maasadu waxaana ku bilaabaysaa adduunyadu waaye siday haybadii ka guurtay wacnaantii baa qalliila xumaantii baa wanaagsan dheg iyo waana isdiiday dadkaa kale waalaloobay walaalnimadaa yaraatay qofkii wagarta u shaqeeya xumaantana weel ku qaataa bar baa weliyo yidhaahdaa qofkii wardigiisa qaata xumaantana waab ka oota bar baa warya yidhaahdaa afkii baa weera qaatay hiddii baa laga wareegay bulshadu dhaqankii wareentay wadananimadaa qalliila xishoodkii baa waxsaar leh waxayntiibaa ammaan leh haldoorkiibaa wareersan hacoogiibaa wakiila danyaro la wareysan maayo wartiyo haradii biyasan intii ubaaxa cabisa haraadka intii waleesho wadaantoodaa doloosha ciddaan la waraabinaynin waraaqiyo baahidooda barbaaba ku wiirsanaya intaaba waxbaa ka waalan colaad iyo weerar jiifta warmaha la isdhaafsanaayo wadeecada taal korkeenna dad baa ku wishiiriyaya barbay waabayda xoogan wadnaha saaqdoo u liitaa xamsow weysada ha dhaafin xamsow waa inankii xamsow weysada ha dhaafin salaadaha waajibkaa tag
xamso weysada ha dhaafin salaadaha waajibkaa tag sunnaha weele dhankaaga digriga wadar aynu hayno ifkaa waran weer jiraaye rabbaa wehe loo xishaaye waduuda layaa waduud raxmaana layaa wahaab wakiila layaa qahaar rabbow wacdaraha adduunka afluhu kuma waarayaane waddada saxan nagu hanuuni dambaysana noo wanaaji sidaasna intaasi ku dhan tahay xataa ducaa ku jirta haa inta dambe ducadii baa xataa ay soo gashay qofka yidhaahda suugaantaadan ka sheekaynaya waa qof yidhi badweyntaa inta dhinaca hore ka galan dhinaca dambe uga baxay oo waxaan ku lama dhammayn karayo maansooyin iyo gabayaba halkan weyne ugu yaala balse haddii aan jeclaysto inaan su-aal ku weydiiyo abwaan shacayb ahaan fankii hore iyo hadda waxaa yidhi abwaaniintu fanaaniinta iyakaa ka soo horeeya waayo waxay ka warramaan mar walba dareenka bulshada sax fanaankuna waa muraayadaas la iska dhex arkayo isaguu sii gudbiyaa laakiin mar walba dareenka bulshada waxaa ka hadla abwaaniinta ka hadla fanka imika iyo waqtigii hore wax weyn baa iska bedelay waxaa weyne iska bedelay maxaad odhan kartaa aragti ahaantaada walaahi horta waa wax walaal iska muuqda oo aan la qarin karin oo fanka dambe imika waxaad moodaa in inta duxdii lagala baxay innaga in yaroo barax laynoo soo dhiibay hadday suugaantii noocyadeedii kala duwan noqoto hadday xataa fankii noqoto ifan iminka la marayaba in qofka waxa xigmadda leh la yidhaahdaa aan la dhegaysanayn haddii nimkaa kaa soo fursan laakiin labadeenu iminka aanu inta jaasno isqabqabsano waxaan ku waxa loonayaa labadaasi waa hebel waa fiican waxaan noqonaa dad bulshada dhexdeedii baa caankaaba oo aad sidii berigii hore abwaanka loo taxagelin jiray baa loo taxagelay imika dee waxyaabaha kale dadka maalayacniga waxa samaynaya marka waxaan odhan karaa un imika jiilkii suugaanta ma joogne dee aniga iyo dhowr kaloo naga midun baa kolley kusii dhegsanoo isle yaanay wada goyn waxay doontaan aan ugu qaadatee waa waxaan wadayno waa waxaan aanu kantarooli karinoo aanu iska burqanayno markan ay xaaladeedii marayso haa walaa waxaan jeclay maanse inaan u taqno jilliin laydhaa sax maansadaa jilliin iyo qaabkii aad u samaysay jilliin marka laydhaa waa wax la matalayo dabcan bal maansadaa jilliin ayaan jeclaan lahaa inaynu la wadaagno daawadayaasha walaal maansada jilliin in habeenada ka mida nin dhalinyaraba ay soo garaacay oo igu yiri waxaan doonayaa qisa igu dhacday buu yiri aduu inan aan waxoogaa isa siiyey oo in badan wada sheekaysan iyo waxyaabo badan dhex mareen ayaa si yaroo sibiqa uun habeen intay ka dhaqaday bay message soo dirtay wala xiriirkan u dhamaadee halkaa inuu kala daa xanuun badana wax allaala waxaan ku sameeyay iyo waxaan ku sheegana ma garanay buu markii waxay ku soo dhacday balcidii asxaabtayd horta isku kala ogeyd buu yiri u diro ergo ahaan u wakiilo ha yiraahdo dhexdhexaadin hal ها ergadina weydiid inankii waxa la noqoto waxaan oo markii hore u meelaysnaynba oo markii hore aanu ku fikirinba oo niyad gelinba saas darteed buu iiga soo dalbaday belinaan arrinka wax yar uu de naftiisa ku dhadhayo aanu yiraahdo markaa maasadan jilliin ayaa sameeyo isagu wuxuu ku adkaystay inantaas wiilo jilaysa aanu ma khaldamin waxa ma samayn ereyga saxarna ha noqdee waxaan maanta ay iga sheeganaysaa ma jiro laakiin iyadaa marka hore jilliin la wadayo yani aniga jacaylka igu dartay dhinacun buu jirtay ma ka fikiro daawadeed waxaanu bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeeni fanka iyo suugaanta umarti maanta inoogu ahaa abwaan shacayb cabdiraxmaan maxamuud oonu uga mahadcelinay mar koobaad iyo mar labaad kuna soo casuumi doono marar kale oo aanaynu imika gayoon karaynin maasadaa jilliin baynu u noqonaynaa maasada jilliin waxaa odhanaysaa walaal caashaqii wacnaan jiray wadnahaygu habi jiray iyo wada jirkeennii caku heshigaagii farxad baan ku waabnaa intuu wacadku dhowrnaa weji been abuur iyo waanan baran jilliinkee umaan wadin wixii dhacay wagartii ma filanayn rajo weyd kamaan dhigin kamaan webinin xiisaha mana wiiqin lahashada ilmo wagac la siiyo waanan baran jilliinkee balse waxaa wareerkii weji gabacda igu riday markaan helay waraaqdii kala wacadka ahayd la wareeray faallada walbahaaray fiirada weydiinta ruuxduna hadba waxay tidhaahdaa maxaa keenay wiirada weedhaha afka ah iyo walla been la mara iyo waanan baran jilliinkee adigana ku soo wacay wadartii asxaabtiyo
wadartii asxaabtiyo erga soo wakiishaday wari laygu soo celiyey waadaanta caashaqa la wareega keligay iminkana waliilkii wadnahayga kama goyn weli waranka caashaqu waaxyaha kama ufiqin kama gama waraaqii weheshadii xasuustii markaan weehanaababa nafta waxaan ku waanshaa iyadaa wareegtee waxa dhacay ka eedlid qof dambana ha weynayn haddaad weyday ruuxaad sida wiilka dhaayaha la nacbayd waxyeelada jilliin marka la yidhaahdo waa erey yacni aad u يعني dadku ma moodaan wax weyn laakiin waa qof ayaad bedeli kartaa xataa jilliin waa hawl adag oo qofkii oo maanta inta wacad la gasho kale aad kaga baxdo dadkii kale uma gelayo waxa damay qofkii oo iska siibad ku tiri aduun baaban ku soo ahayo wakaaso mar qurun bila sabab xataa mar fursad baa laga raadiyo qofka waxba lagu soo mursadaabe xabuub ma soo mursan wax mitrun السلام عليكم إنما ذا كوبا طيها قبلهم نمي الصبيان كل هذا قصب توا تلتالي شيء كذا ما نسدا أنت سنكسر نقنا سنا واي هاي إنك استوتي بقول لها حتى ما حل يجي عذريان صي إن ذو إحنا أبورك وحورين كرتو والله يدان أيان يقول هذا حل بان دريميون aan arkay inaan hibalay imika ma xasuusan karo laakiin waqtiyadan aadka gacanta ugu yar hayn jiray u yar xiisan jiray waxa ahayd waqtiyadii aan iskuulka istaandarsaba 6 meelaha soo gaariyo aan dugsiga dhexe marka aan ku jiray oo aan isteeshada ruwaayadahan yar ee la sameeyo iyo oraha yar oo suugaamisan in soo sameeyo dadka aan iskuulka keenay markii ihtifaalka iyo waxyaabaha noocaas jiraan ama cid madax iyo waxaas kala timaado ayaa la oran jiray soo sameeyo ruwaayado hadda bootaaso intaasan anigiyo nin kale imka halkan aad u salaamayo Shabab Cabdi Nuux qadar joogay ayaa iska kaashan jirnay oo halka aan aad ugu soo sameeyay jiray ruwaayadaha stage ka yare iskuulka inta daaburka lagu jiro lagu daawado halkaas ka soo bilaabay markaasina waqti wax kale oo horeeyay ma way soo jiitay marka ilaa yaraantii bay soo gashay waxa jira gabay la yiraahdo dalka beerta dalka beerta waxaan ku wada abwaan shacayb waa wana socota gabaygaasaan jeclaan lahayn in la wadaagno daawadayaasha walaal gabaygaasna isaguna waa horta wacyigelinta wax weeyaan waxyaabaha qofku ka yar qarsoon marka aad u sheegaysaa leedahay imka wacyigelin hadaan soo caadi ahaan kalmada qeexa wacyi warbaan ku gelinay waraan hayn baan ku siinayaa tan wacyigelin ma aha waa tilmaamista waa wax caadi loo arkayo xasuusin uu iska yar taas kale noqonaysa wax weeyaan kan wuxuu adu igu dhashay maalmihii dhaweeyday Itoobiya xadkeedana laga xaray ayaa waati qaadkii magaalada soo gali jiray wixii baa joogsaday oo dadkii baa wadada istaagayo هذا واحد كان حلو بناخذ خضرات دي ياخذ لك حتى او خله cuntada qaaliyood intaas lagu darayaayo marka waxaan sirinay dalkani ilaa markii hore wad arkiiseen bayna haday sana dhacdo noqotay imika haday marka laga faa'iideeyo ay xaq lagu socdaa way hadii marka xigtaa mar labaad haday ku dhacdo markii hore idin ku ogaa hadana haday dhacdo maxaa sameeyay intii la gudboonayd ayaan ku yiraahdo halkan marka dalka beerta baa dhaamaasadan waxay ku bilaamaysaa sida loo dab galay iyo inaan laba dareemin ina doonaysaan iyo inaan laba daneyneynin Soomaalida xaaleysatay oon digigoxooneynin intuu dooda waa yiri dux way ugu filnaayeen dhagahooda kama daadagaba hadalka doorkii afqalo daloolku arkaan wali daboolayn dalag beerta waa tulahaa taayina bidkii anna aan ka daba maro afkan hadalka deyn waay boqol dawladood iyo hadii shacab la soo duubo oo daara dhaadheer dhismiya damala loo oodo oo aan daruuriga lahayn way iska dibadiyaan bulsho yahay tacaamkiyo cuntada dibad ka dhawraysa bulsho yahay gacmi daalila dib u figeynaysa dux la shiilo daafida la cuno dheeri wax ku deeqa dalkoo idil hadaan laga helin dara nasiibka dariiqaad ka sugaysaan hadii la iska dacareeyo dariiqa Itoobiya hadii la iska dacareeyo darale inaad gaajo dhiman waa mid daahira duqaytalin aqoonyahan darsiya shacab damiriyasha iyo dawlad baariya had intoo la isku wada duumo dalka beerta oo ka caylan xogsi waa dahabi afarta ma duulduuliye
ma idin wada deeqshay mid kale oo inoo dana na aan idin darasiiyo inkastoo hashii deeqa iyo deercad dhala haysto inkastoo la daaweysto oo subag dareerayo inkastay laxdii deylo oo deero dhala haysto oo garadubdheer iyo rii waxaara loo daashay dambarkooda uma maali kalo dul abaydina wax la daasadeeyo wataa boodho lay diray saliidda carta keentiyo macaan dhiikariyo doogo gaas tari dilaaciyo xanuun daawo la heli waayaa waxaa noogu dowgalay waxaad dabad ka beerteene dalka waxa ku sugan baan u ogay daawo iyo rayne dalka beerta oo ka caylan xoogsi waa dahabi gabaygaasina halkaas ileen xoogsi waa dahabi wallahi taas waa hubaal maansadu waa gabaygu waa maansada god ka mid ah wala imisaad godadka ka gabayday gabayadan walaalo maanso horta wuxuu wada maansawni laakiin gabaygu waxa weeyaan oo boqorka maansadan oo god ka mid oo laba dhaca markaa oo lagu miisaamo hooyaalay hooye lagu miisaamiyo aduu ilaa 20 xaraf iyo 18 inta u dhaxaysa meelahaas ay noqdaa shaqalada de gabay waa horta aniga xagga Shucayb ahaan marka la eego waana ka igu fududba isagoo badan oo laba dhac badan kaaga doonaya haddana waa ka igu fudud xaggan ka soo caymila inaan iska yiraahdo waa igu fudud waa ka igu fudud aniga naftaada hormuudan maansa jirtad la yiraahdo maansadaasi naftaadina hormuudan noqotaa way wanaagsan maansada iyo sida ay ku timi walaalo maasadana horta waa iska waana iyadu waa iska khiyaal waa iska emotion waa iska image karanaya waa khiyaalaya marka maasadana waxay tiraahdaa waxaan ku sheegaysaa in yaani hadaad meel wanaagsan doonaysid aad isku hayso meel xun hadaad doonaysid adigu aad badana hadii wixii calaf iyo nasiib iyo marka inta laga yimaado hadana wixii qadar marka laga yimaado adigu saad u socoto xaraka laha baraka ay ku socotaa maasadani waxaana naflaha garasha hagto hantaaqa ka baajisay intaad hay'adaan ku dhicin hanfiga deegaan ku noqon harkiyo geedaha qabow adigu ka sameysay ilaan harac baa jiray harkiyo geedaha qabow adigu ka sameysay qofkii libinka hakrada ka dhowriif iyo nacayb Allah hiba ku dhashay miyuu ka hayn karaa qofkii hoos ku dayay huleele ka socdaba hadaad ku haraadidood hebliye hebelow tiraa adaa hawada marsho qofaan laba haybsaniyo ka dhigay lama heli karaan naftaada hormoodu noqo xilkaaga hayinu noqo karaan hantidaada bixi ileen hiil waad kartaa hayaanqa qofkii ka luma u sheeg hilinkii saxnaa inuu ka hawaysan yahay waqtigu kala heer duwan mar buu ku haraatiyaa inaad hal adeegtid iyo inaad noqotaa haliyey wuxuu raba heegan u ah ayuunbaa lagu hudmaa ilaan hadafkaad rabtaa hortaada ma soo degay hirkiyo buuraha ku jaran ninaan hafanaynin iyo ninaan hafranaynin oo ku guud mara hawl yaraan ayuunbaa haaban kara sidaasaa lagu hogmaa mar buu hogal kuu shubaa ris iyo hoobaan udgoon hareeraha kaa dhigaa adduunyadii ku hogin hawiya dheeleelka diid naftaada hoggaan ku qabo hog iyo iil baa jiray habaabay adoo ku sugan kadaadan yaana bixi taasna intaas ku eegta gabiga wani hore sheegay oo Shucayb waa waana socota hal iyo waana halkan bi inoo yaala ugu dambeyn barnaamijku waxaan taaganay guntiga gabagabadii weyn wadi laynu ilaa maanta intii aynu ka gaarsiin karayno laakiin intii aynu ka gaarsiin karayno bayno waqtigu inoo saamaxo waqtigeena haya ugu dambeyn haddii aan fursad ku siiyo dadka imika fanka soo galaya haday tahay bal fariintaad u reebi lahayd iyo jiilka dambe cusub horta walaal dadka fankiiba yara kala labaayo aad moodayeen dadku isku yara khaldaan waxa weeyaan horta gabayga waxaan dhageysanay Sheekh Maxamed Umar Diro la weydiinay gabayga ka waran
rag dad baa dib waxa maraya magaranaysa waxa ku dhaaf bal gabay ka wararta si ma dambiba tamay wuxuu ku yiri gabay waa hadale hadalka sidoo marna bawaaxiyo wax iska banaaniyay marna dambi u yahay marna ajarkaaga kordhiyay xasanaadey ayuu gabaygu inta la midin buu yahay marka badanaa waxaan isku dayaa bal xagga bulshadayda iyo dadkayga iyo dalkayga iyo dhalinyartayda iyo inta demokrasiga maanta aan xaaban karo abu wax gaarsiin karo maadaama waxay bilay inta tahay inaan wixii wanaagsan u gaarsiiyo waniga yiri waano aan wixii wanaagsan kolba ugu soo kola inkastoo gabaydu mar walba aan qof gabaygi u diyaaro mar walba gabay hayahayn haddana wax soo maaxayo marba imka laga yaabaa in dhowr bilood sanad kala dambeeyaan oo ay kala fogaadaan marka saas darteed xagga waanadu inta ugu soo ururtay baa ayaan oran karaa fariinta aad u reebayso dhalinyarta dadka fanka jecel horta waxa la oran lahaa niyo fankiina horta waa hibo markuu Ilaahay ku siiyo qof waxaad kaga duwan tahay oo Ilaahay ku siiyo kulli xisaabteedana way leedahay wax kasta xisaabtiisa loo leeyahay wax weeyaan maanta ninka gabayga haya ee Ilaahay hibadu siiyay ku ololaynaya ku guul wadaynaya inta xul adeegsanaya wax ku goosanaya ku shaxaatagaya maanta ninkaasi maaha maqaamkii laga yaqaanay maaha waxa oran lahaa wax dadka u dana idinka dadku Ilaahay wax dadka u dana ay sheegisaan amraaydi waxa tinda bulshadu sharxarkiisa sida qiimo yartaan idinku horta qiimo isku yeela oo idinku gabayga ku shaxaatagina oo ku wax doonan oo ku ololayn oo qof ku amaan aanu ba qalminba ya imku waxa jirta marka qaar waa lagu saaday wax lagu leeyahay hebel aan boo lagu yimid wax lagu leeyahay in hebel oo nin madaxa gabay aad ku amaanayso soo samee hebel anu hebel waxa ka qana inuu maaki in waxa ku dalka ugu yahay ma garanayo laakiin qof inaan raaca ma hadda anu waxaan waan halka saacado sano ku dhaaraan saaxiib gabayada noocaas ma sameeyo walaal amba in adeer ma sameeye bal cid kale igu dhaanta order raasad marka hada kulli bilcagsi kuwaasna way jiraan kale in maxaa la dhahdaa gabayada noocaas kala sameynayaan bad Ilaahay hibadoodii in ay u sii saaka ka dhigeen garasa u jiraan in marka kulli wax intaas ma sheegay inaan gabayada kuna online waxna ku raadsan qoodiyaxnaas waa tahay waxa daawadayaal taaganahay guriga iyo gudubada barnaamijkeena xal iyo waano ma sida xal iyo waano ayaynu ku saafmeerinaa barnaamijkeena ma sida xal iyo waano walaal ma sida xal iyo waano habeenadan kamid ah oo dukaan wax ka iibsanaya iska rixlada mid soo habsan ayaa ninka sir garanaya dukaanko lacag buu soo hayaa waxa ruuxa iibiyo marka alla soo diisay assalaamu alaykum waxa walaal ma haysaas moolkan soo weeyay ninku uu sheekeynaya inta uu hadlay wax leeyahay in daantan laga ma jecla daantan kale laga ma jecla halkii shaqada waa jirna in xaafadeedu waa sidan dhammaan dadkii baa ninka agtiisa eedaysana ka noqday isaga eedaysana markaas siroro karo wax Allah waxa ilaawan galay sasan weeyay ninkan isma naqaano lama hadli karayo waa ninkan xaalaysan waxa sidee inta sabab afku mid ka xumaada ninka dukaanka wuxuu ka dhaadhicin dadkii oo dhan ay yihiin maanta dad caadaw ku ay isaga inta ku xeeran intii koobtii shaqada deegaanka uu deganaa in ehelkiisii dhammaan wuxuu ka dhigay waxa kuwaas inuu adeegin kuwan waa san kuwaas ima xuma laakiin kuwaas ay dan kuwan ma jecla waa iska dhex joogi karaa laakiin wuxuu ka dhigay wax adu dadkii isaga u daray marka waxaan ma soo xal waano ayun baan igu soo yar dhacday malaadee ninka naftiisa naftade ama sino naftan ku jirta ninka naftan ku jirta adaga maxaa dadkii buu ka wada dhigay khalad marka ma sida xal ما صدق حوالسا نفي هاي حقيقة عدلان نفي هاي حنتين نجان نفي هاي يا حسرت الكيد كحوري سي قف كله وحرينا ساي نفي هاي فعليو حفال نفي هاي فعليو حفال نفلها كحودين سي نفي هاي فعليو حفال نفلها كحودين سي حدنا حنتوني ساي نفي حق ديديسay dulmiga soo xaabsatay hadana xuurtoomisay نفي xeeliya awood waxay xaraka lahayd qof kale ku xumeeynayay hadana xasanaad rabtay xal iyo waanan wada tabiya xeel baan hayaa dhagaha xalo ay maqan ibliiska warkiisa xoor xariga ee bana qabso
xuduudka ha dhaafinoo xasarad ha u dhigan salliga marka maasaa dee dawadeedii ninkaa wuxuu maan uga dhigay inuu bal xagga ilaahay ku yar toosnaado haayo haddaad doonaysa dee nabigaa inoo sheegay calayhi salaam haddii aad doonaysa inay dadku ku jeclaadaan marka hore adigu ilaahay inuu ku jeclaado ayaa ka horeysa ilaahay baa ku jeclaanaya rasuulkiisa bacdiga marka saddexaad bay ku jeclaanayaan dadku ku jeclaanaya marka intaas ma dawo uga dhigay inkastoo na gaarsiin haddana kole waxaan bal dadka dad kaloo lamid ah hadday barnaamijkaasi haysta jiraan intaa yara dawada waa tahay kulli waxaan maraynaa guntii iyo gabagabadii barnaamijka kalena waan kugu soo casuumi doonaa ka gayoon mayno sugaantaada guud ahaanba daawadayaal waxaan intaasi ku saafmeerinaa barnaamijkeenii fankii sugaanta dhinaca kaamarada waxaa inoogu sugnaa cali maxamed iyo candiruus indho oo habeyntii isku dubiridkii iyo diyaarinta aniga ahayd cabdirasaaq shaam tan iyo inta ku kulmi doona barnaamijkan barnaamij xiga sidaa iyo nabad geliyo